aan ku bilaabay madaxtooyada Soomaaliya ayaa xal u raadinaysa khilaafka u dhaxeeya siyaasiyiinta Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha maamulkaasi. Waxaa soo baxay in la baajiyay safar ay qorsheynayeen siyaasiyiinta waaweyn sida madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Mursal, gudoomiyihii hore ee baarlamaankii 11aad ee Soomaaliya. madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku baxday khilaafka siyaasiyiintan iyo hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed. dhinaca kale xildhibaan Mukhtaar Guuleed oo kamid ahaa wafdigii ku wajahnaa Baydhabo ayaa la hadlay warbaahinta. safarkeena ma noqon doono mid maanta ku eg ama berrito ku eg hadduu Ilaahay gaarsiiyo maalmaha soo aadanna Baydhabo ayaan tagi doonaa halkaasna saxaafadda kula hadli doona iyo shacabka aan matalno deegaanadaasi. marka safarkeeni maanta uma uusan baaqanin diyaarad la celiyay ama dhibaato kale timid wuxuu u baaqday codsi nooga yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo naga codsaday inaan siino maalmo kooban si safarka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bisha tobnaad 2025 waxaa naga baaqday safar aan ugu soconay caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo oo wafdi uu hogaaminayay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka haatan ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo aan ka mid ahay aniga iyo dhowr xildhibaan kale oo deegaan doorashadu ay tahay magaalada Baydhabo. safar aan ugu soconay inaan deegaanadeeni ama deegaan doorashadeeni aan ku soo booqano oo kadibna loogu talagalay in gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo haatan ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga horumarka iyo dimuqraadiyadda uu ugu talagalay inuu xafiis halkaas ku soo furo annagoo xildhibaanadii deegaankaas ka soo jeedayna ah dadkeena aan dib ugu laabano oo wacyigelin arrimaha ku saabsan doorashooyinka qof iyo codka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ay horey ugu shaqeynayeen inaan halkaasi geyno ayaan rabnay balse nasiib darro maamulka deegaankaasi ka jiro muddadiisa ay dhamaatay muddo xileedka dhamaadka ku jooga halkaas ayaa diiday in deegaankaasi la tago sidaa darteedna annagoo ah xildhibaanada deegaanadaas ka soo jeeday oo uu hogaaminayay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka waxaan go'aansanay maanta inaan halkaas aadno safarkeena uusan baaqanin balse wada hadal iyo wada xaajood noogu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qaranka Soomaaliyeed dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee mas'uulka ka ahna uu noogu yimid oo naga codsaday inaan safarkaasi maalmo kooban aan dib u dhigno wada hadalna uu sidaas noogu furmo Baydhabana ay noqon doonto xarun ay dhamaan ay ka xarun ay tagi doonaan dhamaan xisbiyada ka diiwaan gashan guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha si loogu fuliyo habka doorashooyinka qofkii codka ah ay dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu doonayay annagoo marka tixgelinayno codsiga nooga yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ixtiraameynana mas'uuliyadda guud ee dalka uu haayo annaga iyo xildhibaanada dhamaanteena iyo madaxdii kale ee nala socotay ee safarka ka mid ahayd waxaa isla qaadanay inaan tixgelinno hadalka madaxweynaha hadalkiisana aan tixgelinno waqtiga kale aan ku ballanayna safarkiisana sidiisii uu socon doono waxaan rabaa marka halkan inaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan reer Koonfur Galbeed aan ugu cadeeyo safarkeena ma noqon doono mid maanta ku eg ama berrito ku eg hadduu Ilaahay gaarsiiyo maalmaha soo aadanna Baydhabo ayaan tagi doonaa halkaasna saxaafadda kula hadli doona iyo shacabka aan matalno deegaanadaasi. marka safarkeeni maanta uma uusan baaqanin diyaarad la celiyay ama dhibaato kale timid wuxuu u baaqday codsi nooga yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo naga codsaday inaan siino maalmo kooban si safarkaasi uu u hirgalo. waa mahadsantihiin. xeer ilaalinta Galmudug ayaa racfaan ka qaadatay go'aankii maxkamadda Galmudug ay ka gaartay kiis dil ahaa. xeer ilaaliye Cabdixakiin ayaa akhriyay bayaan ka soo baxay xeer ilaalinta. maanta ay taariikhdu tahay 21 bishii tobnaad 2025 anigoo ah kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee Galmudug xeer ilaaliye Cabdixakiin waxaan rabaa inaan bayaan yar aan ka bixiyo kiiskii dhacay taariikhdu markay ahayd 9 bishii tobnaad 2025 kana dhacay deegaanka Baaldheer ee gobolka Galgaduud. kiiskaas maxkamadda darajada koobaad waxa ay u fariisatay fadhiyo kala duwan ugu dambeynna waxaa ka soo baxay go'aan
go-aankii ka soo baxay maxkamadda darajada koobaad xafiiska xeeraryaha guud ee galmudug kuma qancin go-aankaasi waxa uuna ka qaatay racfaan si waafaqsan xeerarka dalka u yaala wixii garsoorka dhexdiisa ku qaldamana waa sababta loo sameeyay inay maxkamaduhu ay darajooyin kale leeyihiin ilaa 3 darajo ay ka kooban yihiin oo haddii darajadan maaragtay aan lagu qancin darajada koobaad haddaan lagu qancin ay munaasab ka tahay cidaan ku qancin oo aado darajada labaad haddii darajada labaad aan lagu qancinna in la aado darajada saddexaad oo cabasho la qaado waxaan rabaa in kiiskaasi xafiiska xeeraantu uusan ku qancin go-aankii ka soo baxay maxkamadda darajada koobaad ee uu aaday darajada labaad oo racfaan qaatay si waafaqsan xeerarka dalka taas waxaan rabaa inaan halkaas aan ugu gudbo dabcan hay'adaha dawladdu waxay ka kooban yihiin ilaa 3 hay'adood hay'ad walibana shaqadeeda iyo arrimaheeda khaaska way u madax bannaan tahay hay'ad ku shaqaana ma jirto waxaan rabaa inaan u sheego bulshooyinka Soomaaliyeed kiiskan waxa uu ka dhex furan yahay garsoorka dhexdiisu ka furan yahay waxa uu mari doonaa darajooyinka loogu talagalay iyo nidaamka sharciga mari doonaa haddii alla idmo qaabka bulshadu ay uga falcelinayaan ma ahan qaab sax ah ha u geyso qaybo kamida aqoon darri ha u geyso oo aysan cilmiga u lahaan waxaan meesha lala aaday haddii go'aanka lagu qanci waayo ama maaragtay tanaba laga lahaado wadana shakhsi meeshaas maaragtay ku jiraan waxaan rabaa in aan ku soo koobo waxa la yaala wixii garsoorka dhexdiisa maaragtay ama lagu qanci waayo ama maaragtay qaldama waxa lagu saxaa isla hay'adda dhexdeeda waxaan uga degsan xeerar iyo shuruuc baa uga degsan waxaan leeyahay nidaam iyo maamul iyo kala sareyn waxaan rabaa inaan bulshooyinka Soomaaliyeed aan ku baraarujiyo kiiskan ka furan maxkamadda hadda sida aan sheegay racfaan gobol galgaduud inuu san ahayn kiis ka furan xukuumad ama baarlamaan dhexdiisa inuu yahay kiis ka furan garsoorka dhexdiisa laguna xalin doono haddii alla idmo garsoorka dhexdiisa lagu xalin doono waana sababta hay'adaha loo kala madax baneeyay isla ayagiina aan maaragtay hal darajo aan lagu koobin oo go'aanka soo saarto kama damays noqonin looga dhigay fursadaha kala duwan loo sameeyay looga dhigay darajooyinkaas kala sareeya oo midiba midda ka dambaysa wixii ay qalado inay saxdo ay sharciga tahay waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ku soo koobo oo aan u mahad celiyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo runtii aad isha ugu hayay kiiskan maraaxishii uu soo maray iyo go'aanka gaaristiisa runtii bulshadu dareenkeeda aad ay u cabirtay sababtoo ah dhacdada ayaa waxay ahayd dhacdo uguba oo aan Soomaalida dhexdeeda wax hore looga yaqaanay ama la filin karay aan ahayn waxa aan rajaynaynaa haddii alla idmo insha Allah in kiiskaasi uu si cadaalad ah ku dhamaado go'aankana waxa iskale garsoorka iskale xeeraalintu waxay matashaa qaranka waxa ayna ka tahay darafka dhibanaha matalay kiiska ka tahay waxaana eedeysanahana qareenadiisa iyo isaga ayaa istifaaca waxaan rajaynaynaa insha Allah in uu ku soo idlaado kiiskaasi si cadaalad ah ku dhamaado wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar ka daafurtay barnaamijka dadajinta awoodaha iyo adeegyada dawladda hoose wariyaheena Liban Laki ayaa Jowhar inoogu soo diray warkan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Ciidruus Macalin Xasan iyo agaasimaha madaxtooyada dawladda Hirshabeelle mudane Cabduqaadir Cabdulle Xooshow ayaa maanta si wadajir ah u daafuray dadajinta awoodaha dhamaystirka furfurista adeegyada dawladda ee dawlad goboleedka Hirshabeelle kaasoo ay ka soo qayb galeen howlwadeenada wasaaradaha iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda Hirshabeelle ujeedkan barnaamijkan ayaa ahaa in la horumariyo isku xirnaanshaha shaqaalaha iyo kor u qaadista wacyiga iyo fahamka shaqaalaha ee dawladda sidoo kale dhisidda isfahamka guud ee ka dhaxeeya dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda Hirshabeelle ugu horeyn waxaa halkaa ka hadlay agaasimaha madaxtooyada dawladda Hirshabeelle mudane Cabduqaadir Cabdulle Xooshow aan u tagnay marar fara badan wadanka Kenya magaalada Nairobi si aan discussion fara badan ugu galno waqti badan aan soo gelinay laakiin maanta waxay u taalaa inay maaragtay meesha annaga shalay soo gaarsiisinay ay ka sii riixaan
aqoon-yahanada iyo kaadiriinta ku sugan maanta gogashan madashan ku sugan inay ka qayb qaataan oo ay doodooda ku darsadaan masiirka Hirshabeelle waxa laga hadlayana ay tahay daadejinta awoodaha ha noqoto federal iyo state iyo dawladaha hoose in badan baa la yiraahdaa federaalka wax baa nooga maqan maanta ay rabtaa dad iyo aqoon maskaxdooda ay furan tahay. ugu dambeyn waxaa halkaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Ciidruus Macalin Xasan. waxaa farxad noo ah inaan maanta aan imaano magaalada Jowhar kulankan idin la yeelano annagoo ujeedkeena uu yahay inaan dhamaystirno shaqooyinkii ka socday furfurista asteynta awoodaha sida la socotay December 2022 golaha wada tashiga qaranka oo Hirshabeelle qayb ka ahayd waxaa lagu saxiixay heshiis la yiraahdo asteynta awoodaha kaasoo qorayo 124 awoodood loo kala asteeyay saddexda heer ee dawladnimada shaqooyinka ay leeyihiin federaalka oo ilaa 44 ahaa shaqooyinka ay leeyihiin dawladaha hoose ilaa 32 ahaa iyo howlaha loo asteeyay dawlad goboleedyada ilaa 29 ahaa iyo howlo kale oo ayagana wadaag ah oo ka dhaxeeyo laba heer ama ka badan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayadoo kaalmaysanaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay wada tashi la yeelatay dhammaan wasaaradaha federaalka waxaan isku daynay in aan furfuris ku sameeyno shaqooyinka duubnaa ee ku koobnaa 124 ilaa heer la soo gaarsiiyo 1146 shaqo oo u kala qaybsan saddexda heer aan soo sheegay iyo kuwa wadaag u noqon doona laba heer iyo ka badan waxaa la soo gaaray marxaladii aan wada tashi la sameyn lahayn dawlad goboleedyada waxaa la soo gaaray marxaladii dawlad goboleedka dhexdiisa wada tashi u sameyn lahaa waxaa la soo gaaray marxaladii dawlad goboleedka sektorkiisa iyo sektorka kale ee federaalka ah ay wada hadal ka yeelan lahaayeen maadaama howlaha la asteeyay intooda badan ay yihiin howlo ku salaysan cilmi iyo aqoon iyo khibrad iyo takhasus cid walba kama hadli karto takhasus aan keeda ahayn iyo mandate aan keeda ahayn sektorka waxbarashada waxaa ka wada hadli doono heerarka kala duwan ee waxbarashada federaalka iyo dawlad goboleedyada kan caafimaadka waxaa ka wada hadli doono heerarka kala duwan dawlad goboleedyada iyo federaalka sidaas si la mid ah sektarada kale biyaha korontada kalluumaysiga howlaha guud sida ay si la mid halka ay wasaaradda arrimaha gudaha state-ka ay wakiil ka ahaan doonto dawladaha hoose kuwaasoo fursad aanan u helaynin inay mar walba miiska wada hadalka soo fadhiistaan waana aasaaska dawladnimada iyo buddhidka shaqada aasaaska u ah dawladnimadeena waa dawladaha hoose sidaa daraaddeed wasaaradda arrimaha gudaha state-ka waxay yeelan doontaa laba shaqo oo ah inay secretariat iyo xoghayn u noqoto wada hadallada iyo discussionska ka dhex dhacayo sektarada kala duwan iyo inay ku matasho wada hadal walba dawladaha hoose oo muhiim u ah in loo daadajiyo shaqooyinkii ay xaq u lahaayeen sida uu sheegay chief staff-ka Mr. Xooshow in badan waxaa la yiraahdaa shaqooyinka waxay ku maqan yihiin federaalka ku maqan yihiin laakiin si la mid ah dawladaha hoose in badan oo kamid ah ayagana waxay sheegaan in howlahoodii wasaaradaha ay agyaaliin sida daraaddeed waxaan u baahannahay inaan isla garanno shaqo walba oo dalkan laga qabanayo cidda ugu munaasabsan leh inay qabato sida ugu wanaagsan loo qabto bulshadana adeeg hufan oo dhammaystiran la gaarsiiyo taa waxay ku suurtageli kartaa in laga wada hadlo howl walba oo aan qabanayno heerka munaasabka ku ah inuu qabto mar labaad mar saddexaad waan kaaga mahadcelinaynaa liibaan cabdulle maxamed liibaalka Jowhar iminkana haddii aan u nimaadno faahfaahinta dibadda baarlamaanka Japan ayaa doortay haweeneydii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ka noqota dalkaasi wariyaheena Maxamed Cabdiqani Salaad ayaa xogtaasi noo kala dhigaya Japan waxa uu si rasmi ah u doortay Sane Takeichi oo ah siyaasi adag taasi oo noqotay ra'iisul wasaaraha oo ah haweeneydii ugu horeysay ee taariikhda dalkaasi ka noqota waxaa sidoo kale loo yaqaanaa haweeneyda birta
Takaiji oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee Liberal Democratic Party LDP waxay heshay 237 cod oo ka mid ah codadka 465 xubnood oo golaha hoose ah, taasi oo xaqiijisay guush kadib heshiis xilli dambe ay la gashay xisbiga midigta fog ee Japan Innovation Party oo loo soo gaabiyo JIP. doorashadan ayaa waxa ay timid kadib 3 bilood oo uu jiray qalalaaso siyaasadeed iyo waliba sidoo kale hoggaan la'aan tan iyo markii ra'iisul wasaarihii hore Shigeru Ishiba uu xilka ka tagay. Inkasta oo haweeneydani ay ku guuleysatay in ay sameyso isbahaysi cusub, haddana dowladeeda wali 2 kursi ay uga dhiman yihiin aqlabiyad rasmi ah. Haweeneydani ayaa waxa ay ku guuleysatay in ay dalka Japan ka hirgeliso si ay u guuleysato isbahaysi cusub oo sahashay in ay guusheedu degdeg u soo dhawaato. Waxay muujinaysaa suurtagalnimada xasilooni darro siyaasadeed oo la soo afjaro oo wadankaasi ka taagnaa 5 sano ugu dambeeyay. guusha haweeneydan ayaa waxaa loo arkaa mid taariikhi ah oo ah haweeneydii ugu horeysay ee ay gaarto xilka ugu sarreeya ee dalka Japan. balse siyaasadeeda adag ayaa saadaalinaysa in wadanka uu u janjeero dhinaca midigta, gaar ahaan arrimaha socdaalka iyo waliba sidoo kale qiyamka bulshada. Takaiji ayaa waxa ay hore u diiday in la ogolaado guurka isku jinsiga ah, in lamaanayaashu ay yeeshaan magacyo kala duwan iyo waliba in la bedelo nidaamka dhaxalka boqortooyada oo ragga kaliya. dhanka dhaqaalahana haweeneydan ayaa la filayaa in ay raacdo siyaasadii dhaqaalaha ee uu hormuudka u ahaa Shinzo Abe oo ahayd in dowladda la geliyo qarash badan si kor loogu qaado dhaqaalaha daciifka noqday ee dalkaasi. Talaabadan ayaa durba saameyn waxa ay ku yeelatay suuqa saamiyada Japan iyadoo sicirka uu gaaray heerar taariikhi ah. haddana khubarada dhaqaaluhu waxa ay ka digayaan in deynta qaranka dalkaasi lagu leeyahay uu kor u sii kaco, iyadoo shacabka ay ka cabanayaan sicir barar iyo waliba sidoo kale culeysyo dhaqaale oo ay tahay waxyaabaha hortabinta u leh marka ay xukuumadda soo dhisto in ay wax ka qabato. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance isagana waxa uu ku wajahan yahay Israel si halkaasi uu qayb uga noqdo xoojinta heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhawaan ay kala saxiixdeen kooxda iska caabinta ee Hamas iyo waliba sidoo kale Israel. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa waxa lagu wadaa in uu gaaro Israel, safarkiisana uu qayb ka yahay dadaalada lagu doonayo in lagu xoojiyo heshiiska xabad joojinta ee Gaza. socdaalkan waxa uu imaanayaa iyadoo Washington ay cadaadis saarayaan ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu si uu u bilaabo wadaxaajood ku saabsan mustaqbalka siyaasadeed iyo amni ee marinka Gaza oo ay ku jiraan qorshe ciidan oo caalami ah iyo waliba sidoo kale hubka dhigista Hamas. Israel ayaa wali waxa ay ku adkeysanaysaa in aysan ka qayb gali doonin wadahadallo noocaas ah inta Hamas aysan soo celin dhammaan maxaabiista ay hayaan. hal meyd oo kaliya ayaa fiidkii Isniinta la soo celiyay iyada oo wali 15 kale la laayahay. dhanka kalena 2 ergey oo qaas ah oo Mareykanka dhankooda ku matalayay wadahadaladii heshiiska xabad joojinta waa Steve Witkoff ergeyga bariga dhexe iyo waliba Jared Kushner wiilka Trump uu sodog u yahay ayaa dib ugu laabtay Israel si ay uga sii shaqeeyaan hirgelinta heshiiska xabad joojinta ah in uu caga badan ku sii taagnaado. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la sheegay in uu walaac ka muujiyay in uu Netanyahu isku dayo in uu ka baxo heshiiskan, taasi oo laga cabsi qabo in ay dib u bilaabaan colaadii Gaza oo Netanyahu uu ku marmarsiyoonayo. taasi ayaa waxa ay sababtay in la soo diro madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance iyo waliba sidoo kale labada nin ee ku helinaya waa Witkoff iyo waliba Jared. si arrintaasi looga hortago, Donald Trump ayaa waxa uu u diray magaalada Tel Aviv madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance iyo waliba sidoo kale la taliyihiisa bariga dhexe Steve Witkoff iyo wiilka uu sodog u yahay Jared Kushner si ay Netanyahu ugu qanciyaan in uu sii wado wadahadallada nabadda oo aanu burburin heshiiska. dhanka kale wargeys Israel laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in Netanyahu uu si adag uga soo horjeestay in Turkiga ama Qatar ay door muuqda ay ka ciyaaraan gudaha Gaza marka laga soo gudbo heshiiska, isagoo arrintaasi ku tilmaamay qad cas oo aan la dhaafi karin. Washington ayaa waxay dhankeeda mowqifkaasi Netanyahu ku tilmaamtay mid uu Benjamin Netanyahu ku doonayo inuu fashiliyo heshiiska. Trump waxa uu sheegay in uu isku dayayo inuu ku qanciyo inuu joojiyo dadaalada uu ku carqaladeynayo xabad joojinta Gaza. Dahana daawadayaal warkii waanaga inta ee nabadgelyo.